gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland wasiirka wasaaradda maaliyadda oo ay weheliyaan maamulka gobolka Saaxil mas'uuliyiinta degmada Berbera iyo isuduwayaasha laamaha dawladda ee gobolka Saaxil ayaa maanta kulan ku yeeshay xafiiska barataabka gobolka Saaxil kaasi oo daarna sidii ay mas'uuliyiintan ula shaqeyn lahaayeen hay'adda shaqaalaha Soomaaliland sidoo kale waxa saaka hirdaha loo furay xafiis cusub ay ku yeelan doonto hay'adda shaqaaluhu magaalada Berbera waxaana soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan xafiiskii hay'adda shaqaalaha ee gobolka Saaxil ayaa xariga laga shari doonaa waa runtii xafiisan baahi weyn u qabnay marka loo eego maxaan ku raadayay shaqaalaha meelanu hay'adda shaqaalaha ka gobol ahaan safar baanu hawlaha iyagoo dhan u gali jirnay meel dhow oo cabashada shaqaalaha ee gobolku ay markiiba gaadho aad baan u soo dhaweynaa waan hay'adda shaqaalaha Farxaan Aadan Haybi ayaa isna sheegay inay jiraan wali wasaaradda aan lahayn xafiisyo rufaha dhaqaale awgeed waxaana hadaladiisa kamid ahaa hay'adda shaqaalaha Farxaan Aadan Haybi qaran walba halbowlaha wadadhaxaadka horumarkiisu waa shaqaalaha waxaan ugu talagalay anagoo Booramana soo furay Burcana runtii waftiga isbarbar socono aan jecelahay maxadkii tababarka shaqaalaha dawladda Burco ee gobolada Bariga oo runtii uga mahad celinayo wasiirka maaliyadda kaalin macnaha wax ku oola ku lahaa taabintiisa Dr. Saacad inaanu soo furi doono labada gobol ee kale haray sanaag iyo soo loo soo furayna insha Allah taala waa isku tashiyoon waa iska bilow waan ognahay inaan isuduwayaal badan oo goboladii aan xafiis lahayn duruufaha dhaqaale awgeed laakiin tani waxay tahay aan u soo horeysiinay in ay noqoto in shaqaaluhu ay helaan meel ay ku soo hirtaan oo xogtooda iyo waxay baahi qabaan iyo cabashadooda iyo tababarada iyo waxyaalaha ay isleeyihiin shaqaale ahaan xuquuqdiinii waa tabaysaan inay soo gaarsiin karayaan halka ka iman lahayn Hargeysa oo aanay noqonin xaruntii culays ku dhaco caasimada ku dhaco culaysku xafiiska waa furaynaa xafiis dawladeed amba waxa loo kala lahaa meherad shicibka ay leeyihiin amba heed baa loo kala lahaa inteena shaqaysa 10kiiba hal baa ayaa u shaqo tagay xafiis dawladeed in kastay tiro yar yihiin marka loo eego shaqaalaha guud haddana waxay hayaan shaqooyin aad iyo aad u muhiim ah shaqaalaha dawladda u shaqeeya khaasatan dawladda dhexe waxa ka mas'uula samaynta siyaasadooda iyo shuruucdooda iyo habraacyadooda iyo hagayaashooda iyo qoritaankooda iyo tayeyntooda hay'adda ayaa ka mas'uula intaasi kadib waxa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland uu gaari cusub ku wareejiyay isuduwaha hay'adda shaqaalaha ee gobolka Saaxil وعبد الرشيد مبارك عبد الرشيد صول دالسن TV Berbera